salaamullaahi calaykum. magacaygu waa Sharmaarka Maxamuud Xuseen. waxaa laga yaabaa haddii aad ku nooshahay Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho ee gobolada dalka, in dulka maqalkaagu ay soo gaaraan warbixino la xiriira maamulada iskuulada, macallimiinta, ardayda iyo waalidiinta waa isku dhib qabaan sababo la xiriira isticmaalka moobilada oo ardaydu ay ku dhex isticmaalaan gudaha iskuulada, khaasatan xilliyada xiisadaha ay qaadanayaan. waxaa laga yaabaa arday waliba inuu yiraahdo macallin hebel ma xiiseenayo xiisadiisa, sidaa daraaddeed waxaan iska isticmaalayaa moobilkayga. sidoo kale xilliyada imtixaanada ay galayaan ardayda waxaa suuragal ah in moobiladu ay ku qishaan iyagoo isticmaalaya taleefanadooda gacanta. maamulada qaar go'aano ayay soo rogeen oo la xiriira in iskuuladooda aan lagu isticmaali karin moobilka, khaasatan ardayda aysan isticmaali karin. waa ay dhaqan geliyeen qaarkood. waalidiinta qaarna ardaydooda waxay ka reebeen, khaasatan caruurtooda, in moobilada ay u qaataan iskuulada. laakiin meelaha qaar dhibaatada weli waa ay ka jiraan. laakiin maamulada qaarna waxay qaateen go'aano la xiriira in iskuulada ay ku dhajiyaan kaamirooyinka yaryar si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ardayda, khaasatan in ardaygu uusan qishi karin imtixaan xilliga uu ku jiro imtixaankaasi gudaha fasalka ama iskuulku joogo. waxaa laga yaabaa in ardayda qaar taas ay ku noqoto culays hor leh oo la xiriira maadaama fasalka imtixaanka ay ku galayaan ardayda uu ku sugan yahay hal macallin oo keliya, dhaqdhaqaaqa ardayda oo idinla macallinka uusan xakamayn karin. kaamirooyinka waxay noqdeen kuwa maamulka iskuulka, xafiiska iskuulka ay kala soconayaan hadba dhaqdhaqaaqa ka jira fasalkaasi si ardayga uusan u xakamayn ama ardayga uusan u noqon mid imtixaanka qisha. tani waxay noqotay waalidiinta qaar mid ay soo dhaweeyeen, maadaama ardayga waxbarashadiisa la doonayo mar waliba inay noqoto mid sarreysa, lagana ilaalinayo ardaygaasi inuu noqdo ruux ku noolaada ama ku sugan xilliga uu joogo fasalka gudihiisa mid qisha imtixaanaadka amaba ka caajisa xiisadaha macallimiintu ay bixiyaan isagoo xilligaas isticmaalaya ardayga moobilkiisa gacanta. kana waa mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana iskuulkan uu qaato go'aan la xiriira in dhammaan fasalada iyo qaybaha iskuulku ku kooban yahay ay ku dhejiyaan kaamirooyinka ka kooban ama yaryar si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa ardayda ama fasal waliba waxa ka socda xilligaasi. waxaa laga yaabaa adiga weli inaad wax baranayso ama waxbarashadii aad soo dhammaysay iskuulka dugsiga sare. haddii aad waxbarashada weli dugsiga sare wado ama iskuul aad dhiganayso dugsiga dhexe ahaaw ama kan sare, intaba sideed u aragtaa go'aanadan macallimiinta ama maamulada ay qaateen?